السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمر كلا سود وده أدي هذا وما سنتهين مقال كم حربينا ندي كل وداجو دتك تراج لياشة واحد ملايسا إن شرعية دي تراج للسيئة كينيو هذا بالشرع الفدرالة أو دقن قلي أي وحى أو دقية إن دتك دونية إن برمت كليسن كإيقاتان أما بالليسن كنفس دهانتيسا أما هدي وكدعو أما كلمو أي عصبوني سنيان شروطه la doonayo in ay fuliyaan haddii aysan fulinin in aysan leysinka heli doonin dad fara badan ayaa arrintan ay saameyn doontaa oo Soomaali ah balse fiican arrintaasi hal loo ogaado sidoo kalena waxaa jirta in dawladda ay digniin u dirayso dadka green card-ka haysta iyo kuwa viisayaasha iyaguna wadanka sida kuwa waxbarashada ku jooga ayaa loola jeedaa haddii ay sharciga Mareykanka ay ku xadgudbaan ay jabiyaan in macnaheedu ay tahay in laga laabanayo viisaha ama green card-ka wadankana laga masaafurinayo dawladda sidoo kale waxa ay sheegtay in waaxda migration-ka u qaabilsan USCIS-ta iyo ICE in ay baaritaano guud ahaan wadanka uga sameynayaan waxa ay ku tilmaameen howlgalka dhan ah guurka la musuqmaasuqayo arrintaasi Soomaalida saameyn ma ku yeelanaysaa sidoo kale waan idinla wadaagaya wiilkii Falastiiniga ahaa ee dawladdu ay xirtay 2 toddobaad ka hor Muxsin Madawi oo shalay garsoore uu ku amray in la sii daayo haddaba markii la soo daayay kadib Trump iyo golihiisa wasiirada muxuu ku yiri wiilkan Falastiiniga waan idinla wadaagaya koboca dhaqaalaha Mareykanka ayaa qaybtii koobaad ee sanadka 3 bilood u horeysay hoos u dhac laga dareemayaa Trumpna waxa uu ku eedeynayaa Biden arrintaasina sidoo kale waan idinla wadaagaya balse marka hore inka taraagyada waa la sii adkeynaya waxaan ogeyn 2 maalin ka hor Trump inuu saxiixay wareegto uu leeyahay qofka taraaga wadaya waa inuu luqadda Englishka ku hadli karaa qori karaa isla markaana aqrin karaa hadda waxaa jirta marka sharci kale oo 20kii bishii saddexaad dhaqan galay oo guud ahaan federaali ah kaasi oo qofku haddii uu doonayo barmidka marka koobaad oo imtixaanka koobaad oo su'aalaha uu ka gudbayo oo barmidka la siinayo in ay marka uu baaso loo baahan yahay inuu la yimaado marka leysinka uu qaadanayo haddii uu ka lumo haddii uu cusboonaysiisanayo ayaa loo baahan yahay in arrintan uu ka soo baxo waxa ay tahay in uu caddeeyo inuu Mareykanka degan yahay haddana gobolka uu ka sii degan yahay in uu caddeeyo arrintaasi waa arrin muhiim ah dhammaanba goobaha leysinada laga qaato waraaqo ayaa la dhigay oo qofku haddii uu CDL haysto horey looga dhiibaya oo la leeyahay shuruudahan waa inaad soo buuxisaa waxaa jira dad fara badan oo gobol aysan deganeyn address ku ah ama dad ay iskala degan yihiin oo addresska oo kaliya ay ku qoran yihiin ama boorsadooda ayaba wataan oo boosta ay iska furteen oo halkaasi ayuu uga furan yahay addresska boorsadoodana gaariga ay u saaran tahay oo ay iska wadaan traaga iyagoo aan wax cadeyn ah oo wadanka inay degan yihiin aysan muujinaynin marka maxay yihiin shuruudahan marka waraaqdan aad aragtaan qof ayaa ila wadaagay BMV-da tagay meesha leysinka laga qaato Minnesota shalay oo waraaqdan loo dhiibay waraaqdan waxa ay leedahay dokumentiyada soo socda ayaa la aqbalaya qofku inuu cadeeyo inuu degan yahay gobolka Minnesota haddii uu doonayo in uu qaato commercial driver license oo ah CDL amaba commercial learning permit oo ah in midka koobaad oo qofku qaato markuu su'aalaha ku baaso maxaa kamid ah waxyaabaha shuruudaha qofka looga baahan yahay inuu cadeeyo inuu gobolkaasi degan yahay waa ay dhamaatay qof ayaan address ku ahay oo iska la seexdaa kadibna traaga ayaan iska wadaa arrintaasi waa ay soo gabagabowday waxaa kamid ah qofku in uu soo keeno government issue tax form oo W2 ah oo sidoo kalena last year ah waa inuu keeno sanadkii la soo dhaafay sidoo kale waa inuu keenaa heshiiska guriga uu degan yahay guriga qofku markuu degan yahay liis ama heshiis ayuu saxiixa Soomaan waa inuu heshiiskii keenaa oo magaciisa uu ka muuqanayo in heshiiskaasi ama liiskaasi guriga la saxiixay in uu degan yahay cadeynaya waxa sidoo kale ku jira mortgage document ama purchase agreement qofku guri uu gatay isla markaana lacagtii uu bixinayo lagu lahaa amaba sidoo kalena guri uu iibsaday cadeyntii waa inuu keenaa sidoo kalena waa inuu keenaa gaariga title-kiisa oo la soo saaray sanadkii la soo dhaafay gaarigu qofku markuu iibsanayo muhiimadu waxay tahay Soomahan title ayaa la siinaya gaariga lahaanshihiisii
waa inuu keenaa sidoo kalena current military orders ka dhaaf qof dadku inta badan military kuma jiraan property tax statement for sidoo kale current year in uu taxiga uu ka bixiyo gurigaas propertyga hantida uu ka bixiyo oo sanadka hadda socda waa inuu keeno sidoo kale waxaa looga baahan yahay pay stub not older than 60 days waraaq cadaynaysa in mushaarkiisa la siiyo qofka inta badan waraaqa waa loo soo diraa Soomaha mushaarkiisa oo 60kii maalmood u dambeysay mushaarkii uu qaadanayay in uu keeno sidoo kalena waxa kamid ah sidoo kale mid kamid ah waxyaabahan soo socda inuu keeno waa inta badan utility waxa la isku yiraahdaa qofku gaaska ama korontada ama qashinka ama biyaha uu bixiyo guriga uu degan yahay waa inuu keenaa 60kii maalmood ama labadii bilood oo la soo dhaafay in uu bixinayay ama koronto ama gaas ama qashinka la qaadayo lacag ayaa lagu bixiyaa ama biyaha marka arintaasi waa cadahay ayaan filaya waxyaabahaasi oo idil ayaa looga baahan yahay in uu qofku cadeeyo sidoo kalena waxaa jirta in qofku wadankan inuu degan yahay sidoo kalena waxyaabaha looga baahan yahay waxa kamid ah passport ama sidoo kalena shahaadadii in qofku markuu passportka ku baaso la siinay waxyaabahaasi oo idil ama shahaado dhalasho in uu cadeeyo marka arintii waa iska dhamaatay gaari taraaga ayaan iska wadaa boorsadana waa ii saaran tahay gobol kale ayaan address ku ahay waa ay dhamaatay haddii laysanku uu kaa dhaco oo aad waxyaabahaasi cadaynta la imaan wayso laysankaada taraaga laguma cusboonaysiinayo waxaan filayaa arintaasi inay tahay arin cad oo qof kasta oo taraag wada loo baahan yahay inuu arintaasi fuliyo 20kii bishii la soo dhaafay waa federal arintan waa federaal ayay guud ahaan wadanka Mareykanka ay ka dhaqan gashay Twitterka ama X oo hadda loo yaqaano oo USCIS ay leedahay waaxda immigrationka dawladda Mareykanka u qaabilsan ayaa lagu soo qoray arrimahan dadka viisaha wadanka ku joogaan viisa waxbarasho ama viisa shaqo ahaado iyo waliba dadka green card kale waxa ay leeyihiin haddii aad sharciga jabiso wadanka sharciga waa lagala laabanaya waana lagu masaafurinaya waxay leeyihiin green card iyo viisuhu waa mudnaan qofka la siiya laakiin xuquuq ma ahan marka USCIS waxay leedahay qof kasta waa inuu arintan ogaadaa wadankan marti ayaa ku tahay waa inaad u dhaqantaa sidii marti oo kale social media hada ayaan baaritaan ku sameynaynaa waxaana oo eegaynaa haddii aad shakhsiyan qatar ku tahay ammaanka qaranka ama ammaanka shacabka Mareykanka haddii arintaasi ay kugu cadaato waxa ay leeyihiin USCIS markastaba fiiro gaar ah ayay ku haysaa baraha bulshada ee online-ka qof kasta oo qatar ku ah wadankeena iyo waliba qaabka aan u noolnahay sidoo kalena waxa jirta in green card-ka yiraahdeen iyo viisuhu waa laga laabanaya qof kasta oo sharciga jabiyo USCIS waxay leedahay haddii aad Mareykanka imaanayso oo aad helayso viiso ama green card macnaheedu waxay tahay mudnaan lagu siiyay marka waa inaad tixgelisaa sharciyadeena iyo qiimaheena oo waa inaad tixgelin u samaysaa haddii aad u ololeyso qalalaaso ama aad taageerto kooxo argagixiso howlo ay wadaan ama aad dhiirigelisaba waxyaabaha si aad samayso you are not longer eligible ma u tihid inaad joogto Mareykanka inta badan waxa loola jeedaa hadda ardayda jaamacadaha dhiganaysay oo viisaha waxbarasho ama viisa ama green card kala sida hadda wiilkan aan idin soo wado ee Muxsin Madaawi oo isagu shalay la soo daayay ayaa loola golnaya marka dadka green card ka haysto taxadar muujiya haddii aad sharciga Mareykanka jabiso macnaha dawladda Trump waxay leedahay sharcigaasi waan kala laabanayna sidoo kale arintan Soomaalida ma qusaynaysa USCIS waxay leeyihiin ay kala shaqeynayaan baaritaano ay ku sameynayaan in guud ahaan wadanka laga sameeyo guurka la musuqmaasuqay howlgal la xiriira guurka la musuqmaasuqay arintan Soomaalida waxaan filayaa inay sameeyso oo ah in la gato la yiraahdo lacag si wadanka ayaan ku keenaya ama dadka wadanka sharci darrada ku soo galay ay yiraahdaan war sharciyan kugu qaadanaya ee aan isku arrimahaasi ayaa hadda baaritaan lagu sameynaya waxay leeyihiin US Citizenship and Immigration Serviceska arintan door weyn ay ka ciyaarayaan baaritaankan waxa sidoo kale la shaqeynaya ICE waxa la shaqeynaysa sidoo kalena Department of State of Diplomatic Security Service ayaa la shaqeynaysa US Attorney of Maryland marka 10 qof ayaa ilaa hadda loo soo xiray ayaa la leeyahay arintaasi oo musuqmaasuqaasi lagu helay marka arrimahaas baaritaan ayaa lagu sameynaya haddii guur musuqmaasuqa aad Mareykanka ku timid macnaheedu waxay tahay in lagu xiri karo maxaa yeelay immigrationku waxa uu xaq u leeyahay haddii Mareykanka imaashihiisi aad been ka sheegtay ama sharci aad qaadatay aad been ka sheegtay in sharcigaasi lagala laaban karo wadankana laga masaafurin karo arintaasi dawladda Mareykanku xaq ayay u leedahay ugu dambeyntii wiilkii Falastiiniga ahaa ee Muxsin Madaawi oo
laba toddobaad ka hor isagoo baasaboorkiisa interviewgii uu u geli lahaa Colchester Vermont ku galaya ayaa ciidamada ICE ay gacanta ay ku dhigeen. haddaba wiilkaasi shalay garsoore ayaa waxa uu amray in la soo daayo. garsoorahaasi Geoffrey Crawford ayaa la yiraahdaa. waxa uu yiri waxa ay noo cad in Muxsin Madawi oo 34 jir ah uusan qatar ku ahayn shacabka Mareykanka isla markaana wadanka inuu ka cararo uusan qatar ugu jirin. 15 sano ayuu ama 10 sano ayuu wadanka deganaa isagoo interviewgiisii galaya bishii hore 14keedii ayaa la qabtay. shalay markii la soo daayay taageerayaashiisa uu ololeynayay in la soo daayo ayuu la hadlay waxana uu sheegay inuusan wax dambiya lahayn. weli maxkamaddu waa ay socotaa laakiin damaanad ayaa hadda lagu soo daayo oo banaanka uu ku yimid. waxana shalay markii banaanka uu soo baxay uu yiri waxaan doonayaa inaan fariin cad u diro weliba cod aad u dheer anigoo ku hadlaya Trump iyo golihiisa wasiirada idin kama baqaya ee ogaada. ayuu yiri qareenadiisna waxay sheegeen inay u dagaalami doonaan sidii uu u cadeyn lahaa inuusan wax dambiya uusan lahayn. dowladdu waxa ay tiri waxaan sidoo kale doonaynaa qof kasta oo siyaasadaheena arrimaha dibadda ka hor imaanaya inaan wadanka ka masaafurino. marka Maxamuud Qaliil isagu weli Louisiana ayuu ku xiran yahay. wiilkan Muxsin Madawi gobolkii lagu qabtay ee Vermont lagama saarin oo gobol kale lama geeynin. sidaa darteed ayaa qareenadiis waxay shalay ku guuleysteen in damaanad lagu soo daayo xilli weliba kiiskiisa uu sii soconayo. dhinaca kalena ugu dambeyntii dhaqaalaha Mareykanka ayaa shalay waxaa soo baxday in kobaca dhaqaalaha 3 bilood ay u horeysay sanadka uu 0.3 uu hoos u dhacay. waxaana arintaasi ay tahay markii ugu horeysay ku dhawaad muddo 33 bilood ah ilaa iyo qaybtii koobaad ee sanadkii 2022 xilligii coronavirus uu jiray. hoos u dhac noocan oo kala lama dirin. marka arrimaha canshuuraha oo Trump uu soo sugay ayaa arintan loo sababeynaya. sanadka waxaa loo kala qaybiyaa 12 bilood waxaa loo kala qaybiyaa 4 kwaarar oo min 3 bilood markastaba waa la eegaa marka 3 bilood kasta in kobaca dhaqaalaha Mareykanka sida uu u kordhay. hadda waxay muuqanaysaa in 0.3 hoos u dhac ku yimid GDP-ga ama kobaca dhaqaalaha ee wadanka Mareykanka. marka ninkii Trump ahaa bartiisa Truth Social ayaa shalay waxa uu ku soo qoray arintan uu leeyahay hoos u dhaca dhinaca suuqyada ka jira wuxuu yiri aniga maahan ee waa Biden. Soomaalidu maxay tiraahdaa nin maqan wixii loo tago waa nin jooga ceebtiisa Soomaan. Trump marka wuxuu leeyahay arintan Biden ayaa sababay isagoo iska fogeynaya in canshuurta uu ku soo rogay wadamada caalamka ay arintan ay sabab u tahay. marka wuxuu yiri aniga ilaa iyo January 20keedii xilka lama wareegin sidoo kalena canshuurtii aan ku soo rogay weli ma aysan dhaqan galin. marka wuxuu yiri arintan nambaradan wuxuu yiri waa Biden ayaa sababay. sidoo kalena wuxuu yiri dhaqaalaha Mareykanka kor ayuu u soo laaban doonaa si aan weligeed la arkin. waxaana 445% uu ku soo rogay alaabihii ka imaanay wadanka Shiinaha. marka wuxuu yiri Biden arrimahan uu nooga tagay marka hore waa inaan iska sifeynaa dhaqaalaha Mareykankana kor ayuu u soo kobci doonaa. waxaana uu sheegay oo dadku ugu baaqay inay dulqaad muujiyaan. marka Trump waxa uu leeyahay arintan Biden ayaa u sabab. Biden 3 bilood ka hor ayuu xilka ka degay isaga ayaa xilka hayay. marka waxa uu diidan yahay inuu canshuurtan uu soo rogay ayaa sabab u ah hoos u dhaca kobaca dhaqaalaha Mareykanka 3 bilood u horeysay sanadka 2025. marka Biden ayuu dusha ka saaray. xilliga ololaha doorashada uu ku jiray waxa uu sheegay korokaca suuqyada ka jiray saamiyada in maadaama isagu uu hogaaminayay xilligaasi nambarada uu sheegay in maadaama in la dooran rabo darteed suuqyadu ay kor ugu kaceen. marka xilliga uu Biden joogay waxa uu dhahayay suuqyada korokacooda aniga ayaa la dooran rabaa sabab u ah. hadda uu Biden maqan yahayna markii suuqyada hoos u dhaceen waxa uu leeyahay Biden ayaa sabab u ah. marka waxay muuqataa inuu meegeed uu qabsado uu leeyahay ninkii Trump ahaa. shalayna golaha wasiirada ayuu kulan la yeeshay. waxa la sugootay ninkii Elon Musk ahaa oo muddadii 130 maalmood ay u sii dhamaanayso oo loo magacaabay Department of Government Efficiency oo Special Government Employee la yiri. halkaasi ayuu Trump iyo golihiisa wasiirada ay ku sagootiyeen iyadoo weliba hadda la leeyahay Tesla oo dadka saamiyada ama sheerka kule waxay doonayaan in ay CEO kale ama madax qof ay shirkadda uga dhigaan ay raadinayaan maadaama ninkan dhinaca dawladda uu u batay oo saamiyadiina amaba sheerarkiina ay hoos u dhaceen iyo qiimihii weliba shirkadda Tesla. aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waaro idin la sida iyo nabadgelyo.